Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walba aad naga daawanayso kusoo dhawaad Taleex Media. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar saad ula socoto barnaamijyadan halkan ka soo dayno. haddii aad horey inoola joogtayna fiidiyogan sii share garay oo la wadaag asxaabtaada. kusoo dhawaaw qaybtii 19aad ee sheekadii waa sugay iyo warsame socdaalkii 30 maalmood. qaybta 18aad waxay inoo joogtay waxaa intaa ii dheer maliya xoolo aan gabar yar ku guursado. qaybta 19aad waxay ku bilaabmaysaa warsame wuxuu ogaaday inuu daafeer yahay mashaqayso farmaran qabana gaari ma dhasho ah. wuxuuna amuurtaas ku xasuustay maamaayadii ahayd fulay ilaahay kulama kulmiyo hadduu kula kulmiyana midkaa orod badan kama dhigo, baqiil ilaahay kulama kulmiyo hadduu kula kulmiyana beenlow kaagama dhigo, ma dhasho ilaahay kulama kulmiyo hadduu kula kulmiyana maaqido kaagama dhigo. sheekadii odayaashu aad ayay u dheeraatay ilaa maqribkii la gaaray. intii oo wadahadalkoodii socday hadba gees ayuu warsame fiirinayay, qofkii soo baxaba waa suga moodayo. galabtaas aad ayuu warsamo uga xumaaday ballanka looga baxay, maxaa yeelay war uma haynin sababta odayga kale u maqan yahay. wuxuuna intaas laabta ka lahaa dhibaato weyna, nin aad sugayso aan kuu soo socon iyo nin aad soorto aan kaa socon. waa suge ogaal iyo ilowsho midna ugama baaqan ballankoo la lahaa warsame, laakiin wuxuu asagana fariistay beer kale oo la ahayd tan keliya oo magaalada ku taal. 4tii galabnimo ayuuna ka soo baxay aqalkii wiilkiisa oo ku yaala degmada Boondheere, markaasuu iska fariistay beerta ee ku taala kaniisada ka soo horjeeda xarunta dowladda hoose. ilaa ay qoraxdu ay dhacdo ayuu waa sugaya halkaas ku sugayay warsame, wuxuuna isaga tagay markuu ka quustay muddadii oo waa sugayay warsame. wuxuu halkaas ku arkay waxyaalo badan oo yaab iyo farxad intaba ku abuuray. ugu horreyntii waxaa hortiisa soo maray ciidan hubaysan, habsamina u libisan oo koox muusig ah hor joogto. waa suge waxaa hore dheelo ugu sii abuuray dadweyne fara badan oo jidka hareerihiisa tuban tartiibna u soo kordhaya. khamiis kasta galabkii ay ciidanku bixiyaan salaanta calanka, dadkuna waxay u sii diyaar garoobaan daawashadooda xiisaha leh. inkastoo oo waa suga si weyn ugu farxay araggii ciidamada iyo salaantii calanka intaba, haddana intaas niyadda ayuu ka faaloonayay oo wuxuu lahaa allow yaa bal ogaado dhammaantood waa dhaanka dhuumad reerkoodii iyo xoolahoodii ugu soo dhaqaaqay waalidkoodii oo aan tabar lahayn. waa suge wuxuu ahaa ninkii hore u yidhi marka wiilkaygu magaalo aado waan ka naxaa, markuu dhar iyo sonkor ii soo dhiibana waan ku farxaa, laakiin waxaa lagu maamaahay ayuu yidhi laf dhuux leh iyo 2 dhagax laysla waa. amuur kaloo yaab leh ayuu waa suge ayuu galabtaas halkaas kula kulmay. waxaa soo ag maray 2 gabdhood oo inta sarwaalo isku kiijiyeen, mid weliba gacmaha mid ku haysato sigaar tan kalena jalaato. mar sigaarka ayay jiidaysaa marna jalaatada ayay malafsanayaan. waxaa kaloo oo la yaaba gabdhaha midood oo aan timaheeda laga aqoon kuwii gaalada. 2 gabdhood way iska sheekaysanayaan, marmarna waxay u qoslayaan si xaddaaf ah ilaa oo dadka u soo wada fiiriyo si kahsi ku jiro. in yar kadib waxaa timid gabar kale oo guntiino khafiif ah xidhan, garbasaarna aan wadan. gabadhu waxay ku raad joogtaa 2dii kale, aad ayayna u caraysan tahay. isla markiiba waxay ku booday gabadhii timaha gaasha lahayd, waxayna isku qabsadeen meel aan ka fogeyn waa suge. gabdhuhu waxay isku caayayaan af Talyaani, marmar ayayse gabadhii duulaanka ahayd ku dhawaaqaysaa weero af Soomaali u badan laakiin oosan si wanaagsan u garan waa suge. gabadhu waxay leedahay naayaa maxaad burukadeeda u soo qaadatay. waa suge wuxuu indhihiisa ku arkay gabadhii oo inta mar keliya timaheedii gacanta lala helay sidii koofida loo dejiyey. waa suge naxdin ayuu la soo booday asagoo la amakaagsan sidii ay mar keliya timaheedii u soo go'een. wuxuuna yaabkii u sii kordhay markuu madaxeedii ku arkay timo kale oo kuwii hore ka duwan. amuurtaasi waxay waa suge ku abuurtay yaab oo la aamusay. waxaa markii dambe u warramay wiil agtiisa fadhiyey oo u sheegay xeerka xaragada gabdhaha reer magaalku ay maanta marayso. aqoon kororsi labaad oo waa suge halkaas ka helay. wuxuuna isagu ahaa in markii hore ay la wanaagsanayd gabadha guntiinada qabta, laakiin ay u
caddaatay in markii dagaalku dhaco ama howlaha qaarkood la qaybsanayo oo sarwaalku ku wanaagsan yahay xagga asturnaanta, waxaa galabtaas waa suga afkiisa laga hayaa. ileen maradu waa dhar loogu talagalay nabad iyo xarago ee kuma wanaagsano dagaal iyo shaqo adag midna. markii dambe waxaa la isku dayay in gabdhihii la kala badbaadiyo, laakiin waxaa dhulka la keeni kari waayey gabadhii laga soo xaday burukada, waana la ogaa wixii qabsaday. markii loo itaal sheegtay, Waasuge wuxuu halkaas ku xasuustay maansadii gambaraalaha ahayd oo ay tirisay Maynuun Biyoy oo ahayd intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii 19aad ee sheekadii Waasuge iyo Warsame socdaalkii 30 maalmood.